in indhaha biyo ay ku furmaan misna wax yeelayaan aragga ama daciifiyaan waa xaalad caafimaad darro taasoo si aad ugu badan bulshadeena. xaaladan waxaa loo yaqaanaa glaucoma, mararka qaarna waxaa loogu yeeraa tuuga aragga xada, the silent thief of sight, maadaama qofka marka hore badanaa uu wax calaamado digniin ah isku arkaynin ayada oo dhibaatada jirto, balse si tartiib ah aragga u dhaawacmo isaga oo badanaa wax calaamad ah soo muujinin. xanuunkan waxa uu kaalinta labaad kaga jiraa xanuunada keena indhabeelka dunida oo dhan, sida ay caddaysay hay'adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano WHO. waxaan kula wadaagi doonaa si maqal iyo muuqaal ah xaaladan sida ay ku bilaabato, sababaha keeno, dhibaatooyinka dhasha iyo tallaabooyinka ay tahay qofka inuu qaado si ugu yaraan hoos loogu dhigo khataraha ka imaan kara xaaladan, kuwaas oo ay adag tahay kasoo kabashadooda ama daaweyntooda. insha Allah intaas ayaan ku faahfaahin doonaa cashirkeena. faa'iidaysi wacan, la wadaag asxaabtaada si kuula faa'iidaystaan. magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq. soo dhawaada mar kale. sida muuqaalka hortiina ka arkaysaan, indhaha qaybta horay soo xigta waxaa ku dhex socdo waa biyo, kuwaas oo nadiifiya isna nafaqeeyo qaybta hore ee indhaha, sida muuqaalka hortiina ka arkaysaan. markii shaqadii loogu talagalay ay qabtaan waxay maraan ama ay ka baxaan saa u jeedaan biyihii ama fluidkii ama dareerihii, waxay ka baxaan saa u jeedaan halkaas oo mashwogan macnaha halkan oo xariiqan saaray ay ka baxaan sidii fiidiga hortiina ku arkaysaan. marka xaalado kala duwan ama sababo kala duwan oo aan sharxi doono marka ay imaadaan waxaa dhacayo in kanaaladii ama meeshii ay marayeen in gebi ahaan ay xirmato ama qayb ka mid ay xirmaan, taas oo keenayso in fluidkii banaanka loo saari waayo ama qoyaankii ama biyihii banaanka loo saari waayo, taas oo keenayso sida arkaysaan muuqaalka hortiina in isha cadaadiskii uu ku ziyaado oo pressureka uu ziyaado saa arkaysaan oo gudaha ishii, taasna waxay keenaysaa in ugu dambeyn ay dhaawacdo. sida muuqaalka hortiina waa ka arkaysaan falaarta fiiriya waxaan jaalaha neervihii ay dhaawacdo. marka sawiradan fiiriya saa si fiican ugu fahantaan. sawirkan hortiina fiiriya waxaan waa qaybtii hore ishii, waxaa xayirmay fluidkii loogu talagalay inuu baxo ama qoyaanka loogu talagalay biyo loogu talagalay inay baxaan. marka saa u jeedaan waa halkan ayay ku xayirmeen. marka maxaa dhacay waxay cadaadis soo saarayaan qaybtan dambe ee isha saa arkaysaan. cadaadiskaasna wuxuu sababayaa in optic nerve, neerfahan loo yaqaano ama dareensidahan loo yaqaano, oo ah mid ka gudbiyo fariinta isha, oo isha hadduusan neerfahan jirin fariin ma gudbi karto. ilaan aragga sida caadiga ah maskaxda ayaa laga soo turjumaa oo waxaa aragtay maskaxda ayaa laga soo turjumaa. markaas kadib ayaa wixii aragtay fahantaa waxa ay yihiin. marka haddii neerfahan uusan jirin qofka sidaasoo ina la'aan ayuu la mid yahay oo qaybtan hore wax leeg gudbisaa oo keliya. waxa saxda ah oo waxaas soo turjumo waa maskaxda, waxaana u gudbiya ama isku xiro isha iyo maskaxda, macnaha neerfahan ayaa isku xiro saa arkaysa. sawirkan kala fiiriya waa cadaadiska markuu halkan uu ku ziyaado, neerfahan ayuu waxyeeleynayaa. marka sida caadiga ah pressureka ama cadaadiska waxaa laga rabaa 11 ilaa 21 iyadoo la isticmaalayo halbeegal millimeter mercury wax loo yaqaan sida hortiina ka arkaysaan. marka waa la cabiraa sida arkaysaan isha. haddii marka uu ka ziyaado cadaadis 21 markaas pressureka waa high ama uu badan yahay. marka waxyaabo kala duwan ayaa keeno, waa sharxi doona insha Allah. marka yaa sababa xaaladan sida saxda ah wax u sababa lama yaqaano, balse waxaa jira waxyaabo loo aaneeyo qofkana ay tahay inuu ka taxadiro. qaar waxaa jira qofka oo isku control karo iyo qaar oo san isku control karin. waxa waaye family history wax loo yaqaano oo ah in familkaada qof ka mid ah xaaladan ay ku timid adigana waa u nugushahay. laba waxa waaye qofka da'diisa kontanka weyn tahay oo u nugul yahay. saddex qofka doo sokor qabo oo si fiican iskaga control oo u nugul yahay. qofka hadduu dareemayo in aragga fog iyo wax la mid ah oo dhibaayo oo meel fog oo kale aad wax ugu arki karin oo kale oo u nugul yahay. qofka haddii daawooyinka stereo disc aad u isticmaalo oo dadka daawooyinka stereo disc aad u isticmaalo sigana oo daawooyinka hordiina ku qoran uu nugul yahay sigana qofka iska yaraysa yaa fiican. sidoo kale qofka hadduu isha dhaawac ama wax ka gaaraan
ama qaliin iyo wax la mid looga sameeyo asigana uu nugul yahay sidoo kale qofka doo dhiikar iyo wax qaba asigana uu nugul yahay markii inaa fahanteen ayaa rajaynaya xaaladaha qaarna waa la control karaa qofka dhiikar hadoo qabo sokor hadoo qabo daawooyinka steroidska hadoo qaadanayo iyo wax la mid waa la control karaa xaaladaha qaar lama control karo sida qofka da'diisa deeweynta oo kale hadii yani history family ay ugu timaado wax la mid ah sidee loo daaweeyaa inta badan xaaladda marka ay timaado yani dib looma soo celin karo laakiin inta badan dhaqaatiirtu waxay isku dayaan in cadaadiska sida hortiina ku qoran in cadaadiska indhaha ama ishaas la yareeyo oo yani aad loo yareeyo ayadoo la furaayo yani kanaalkii ama meesha wax marayeen ama fluudka oo maraya ama dareeraha oo maraya oo xirmay meena ayaa la furaaya yani oo qaliin ayaa lagu furaaya saa ujeeda labadan nooc ee qaliin oo hortiina ku qoran ayaa loo sameeyaa marka qofka waxaa fiican hadoo sokor qaba ama dhiikar qaba ama daawooyinka steroidska aan sheegno oo isticmaalno iska joojiyo sokortana iska control dhiikarkii waxaasna oo iska control yani ishana sanadkii ama labadii sano mar xaaladiisa oo la socdo ayaa wanaagsan marka noocyada biyaha ku furmay indhaha shirkan kan xalay ayaa ku sharxeynaa balse shirkan si ku soo koobeynaa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.